Assalaamu calaykum. Saaxiibku xun waa cadowga koowaad ee kuu diidan inaad horumar gaartid. Sidoo kalena wuxuu kugu sameynayaa si dhib yar dhaqamada xunxun ee uu leeyahay asaga, sida cabidda sigaarka, khamriga, jaadka, iyo daroogooyinka iyo wax kastoo mustaqbalkaaga u keeni kara dhibaato. Saaxiibku xun waa sida cufis jidadka dhulka oo kale. Tusaale aan ku siiyo, haddii maanta qalin aad kor u tuurtid, waxa dhulka ku soo celinaya waxay tahay waa cufis jidadka dhulka. Sidaas oo kale saaxiibka xunina wuxuu kuu diidayaa higsigaaga nololeed inaad ka rumaysid. Sidoo kalena wuxuu kaa dhigayaa qof aan ka kici karin dhibaatooyinku maanta ku jiro. Haddii aad rabto guul, sidoo kalena aad rabto inaad ka mir dhaliso riyooyinkaaga, ka fogow saaxiibada xunxun. Sidoo kalena la saaxiib wanaagsan, kuwaasoo leh rajo wanaagsan. Sababtoo ah waxaa jirtay mahmaah Soomaaliyeed midaasoo dhahaysay shimbirba shimbirkiisu la duulaa. Helidda saaxiib wanaagsan waxay qayb weyn ka tahay guulaha la gaadho. Halganka nolosha ku dadaal helidda saaxiib wanaagsan. Sidoo kalena iska ilaali saaxiibka xun si uusan noloshaada halis u gelin. Walaashaydii ama walaalkaygiiyow, haddii aad rabto guul, sidoo kalena aad rabto inaad ka mir dhaliso riyooyinkaagii oo idil, ka fogow saaxiibada xunxun. Sababtoo ah haddii aad maanta la saaxiibto saaxiib wanaagsan oo diin leh, dhaqan fiican leh, dabeecad wanaagsan leh, sidoo kalena waxaad yeelanaysaa adigana dabeecadihiisoo idil, dhaqamadiisoo idil dhammaan. Haddii aad la saaxiibto saaxiib xun oo leh balwad, dhaqan xun, dabeecad xun, sidoo kalena saas baad noqonaysaa adiga. Walaashaydii ama walaalkaygiiyow, marka ka fogow saaxiibada xunxun. Waxaan ku leeyahay horumar wanaagsan, ku guulayso labada daarood, yacni adduun iyo aakhiraba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.